Waziri Hamza Sultani wa gargara maskini yezeze zaidi duniani kuwaka muhi waamini. Furaha zile ni kitu kumpata waziri mema, kichiwa kila ntitu Hamza simemi mapema yekodhela dibuitu hakitu fanya khema. Waziri Hamza Sultani wa gargara maskini yezeze zaidi duniani kuwaka muhi waamini. Kichiwa kila watani sijina kulinda kako kuwasaida Marawa wajib kana waa tii xaqa inuu maaragtay asagoo warbixin inaga siin doono oo qofka markuu umadiisa ku tago waajibna ka saaran inuu warbixintii ka siiyo ana heer qaran uu naga siiyo heer maaragtay deegaan uu naga siiyo. Insha Allahu tacaala taasaan ka bixinaynaa anigana gacan furan aan kusoo dhaweynayna nahay ahlu baraawa iyo ahlu banaadir haddii aan nahay walaalo aan nahay meel kala soo jeeda dadkii aan nahay kuwii la dulmiyey oo dhibaatooyin badan ku dhacay. Alxamdulilah rabbil caalamiin inta waxay maaragtay kulankan ilaahay maaragtay waxaa inaashina keenay wasaaradaha u waaweyn ayuu joogaa qaranka. Wasiir wuxuu doortay inuu yimaado halkan sidii dadkiisa is arkaan, sidii dadkiis fahmaan, sidii walaalkii Maxamed Jiilaani yiri wuxuu waa wasiir laakiin baalalkiisa yaa waaye waa annaga ahlu baraawa aan ka faa'iidaysanay joogtaankiis. waxay tiri aan siino go-aankii gaari go-aan sahal ma aha. intii landa ka soo baxo intuu yimaado inaa idinka kaliyani arko halkii daqiiqa buu suga dahaba soo fadhiyaa aan si jamantu fadhiyaa aan ku sharafno. sultaankii waa jooga, sheekh maxamed rufaaci waa jooga. aniga meeshaan waardan waddan ku leenahay adigu koobo waddadan waxaa waaye maxamed cabdallo oo caadi xishmeelo odageena ah, maxamed rufaaci sheekheena ah, sheekh koopa waa dadka saddexda tiirka ah. masaajidkan dadkii dhisan iyaga waay, dadkii istaagan iyaga waay, baraabana iyaga kala qabaan. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Kina furaha mkulu leo kwa waziri wetu Kichilila hapa, hashikubona hata siku moja mawaziri wa ilo hapa madubutatu ilo hapa wachila silo watakichimera, lakini leo kamba dubutato waliko sharifu كل وقت تشيا na كل وقت اشترى كيتو na كل وقت تشسايدا yena maana vile takumuta isi se dibu yitu watamini azicinayo nini achana sula sekabo pesa achafula chintu achafula rai kichiletera ya watamini mini takoi kodibu takumuta isi wantu moke chishiwa utungu
تلوا مين أتشكو مكترنا كتر توضف فيه يوتم لكن إني ليبو إلى سلو دوا هجنا نين هجنا فأنا سي وطاميني نيو موي كانسا أبا ماتشستا وزير نكونا مسكت كويو يسكيون تاسا جنو وانتما جنايو وكا mahalo soa maite sino nako sino tama nako fungura makna kuzitisha inshallah mujiru wakiingia kitu karibuni na watu wabashiro makna wamo katika tarikhi ya dunia na akhera ya kushukura kansa mtu Manchester ingine waziri kasa wewe waruka size watu wasichwa kwa masuli mbele wavele kama watu duniani leo ikulu yako ni kitu maana taarifa kuu ya wathamini na pili Irani kwa si mimi sisimeme karuhu na mali fanya hospitali mimi katike hospitali hiyo waziri sisi karente hapa walikuwa fanya rabsha maana mada maana kasize karente waziri fanya maslaha ya watani nini Amerika kila mahala kote wafamini kila mtu tomele ya jambiloa hivyo kwa wakati isifungila na madaktari tayari haitwanzir iwa nini iko hapo na kwa merceleza o paresente anshida isa kenda maana kenda mini fungula wakuantu wa ofeto wachonyo sisi fungula chetu shekhi kipiga telefono ndio washtomoro pesa zao wachiwakiro make ishperekeloa basi sasa jawabu swali nyingi tuanze hala mini natibuye hata isa kinokambilo mini ndio degani achinokuona hata isa degani hiyo achinokuona sina tichino haki wathamini kino haki khoda maana tinkuru ndisi jinai anda kiamboni hata manambi nintie wathamini suwa maana ije lakini na maneno tu tidigiri ahani na mrufle lakini lazima haki yetu kistomodela huko na kambao na wana kirebo na kuna jawabu ni ije ndivyo masuuli yetu leo ndivyo takataka oko au joko oko tunakwenda bale mibubu leo mwisho mibubu anadir bakoda chintu kamile isa leo sina kushukura ikema kitu Manchester maruma wote wako wenye siasa wote wako isa na kumajaka hapa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول السومال هذا أيضا ما ستين فرصة عن أساس ما أنتنا نروحهم سكين زانوي بعض لكن كان شوراء أمات وضياش وعلى صوص الأمر لكن مركا أنا وزير هذا وزير كواديك دولة مدن واديك dadka adeegays inaad sharaftida u tinto meesha joogo tan labaad runta aadan u faraxsanaa maanta dad aan muddo aan arkin meesha aan ku arko ya xaruntan aad samaysateen masjidkan Baytullah tan waxay ku tusinaysaa midnimadiina ku tusinaysaa oo samaysan dad meel joogo saan u muuqdaan taasna waxaad ku leedahay sharafaad ku leedahay magaaladan alxamdulillah إن سان كودان مركز سنة واحد كده لسان إن المدينة مكشف لسان
waddan shisheeye wada joogtiin Soomaaliya wadnaa kulligeen markase saadad ku soo dhaweystaan reer banaadirkii iyo soo qabaayilada kalena soo dhaweystaan meeshan u imaadeen ku wada joogteen tan nafteeda sharafeen inta muddo badan aan maqlay inaan waxyaabaha inta ka qabateen laakiin maanta aniga shaahidan ka noqdo markaan xag ku noqdo waxaan ku qaadi doonaa anaa og haddaan xoogaa warbixin kooban dhiga siiyo xaaladda waddanka ka jiro waad la socotaan oo malena media markasta wada gashaan waxyaabaha aad ogtiinaa jiro iyo waxyaabaha aad ogeenaa jiro marka haddaan ka hadla aniga waxyaabaha aniga khuseeya oo arrimaha bini'aadanimada aan ka shaqeynayn muddo ah waddanka wuxuu ku sugan yahay waqti xaadirkan roobkii oo bishii deer sal roob uma da'in jilaalkii la galay guudaa la sugaayay waqtigii maalaha waa naga soo daahay roob badan meen roob yaray kaas wuxuu keenay dunyariduu keenay u baahsan waddanka ilaa bisha Oktoobar hadduu ilaahna gaarsiiyo hadii laga gaaro waxaan gelin xaalad aad u khatar ah gobolladii dhibaatooyin aad u fara badan bini'aadanimadii sal rabo looma qaban karo base waxaa imaanaya arrimihi amniga meelihii oo wax soo saarkii ka jiro waddanka sida shabeellooyinka jubbooyinka hirshabeelle meelihii labada webi ee marayaan qolooyinka iyo nabaddiidka meesha jooga meel kasta ay jidka tahay dhowr safar aan ku tagay bakool iyo bayaan soo marnay magaalooyinka ma la gudbi karo ma la geen karo waxaan joogna xudar aan joogna ma tegi karno maxalliya albarti ma la tegi karo maxaa degmooyinka kale ayagaa jooga raashinka waxaa looga keenaa Ethiopia looga keenaa dadkaas dhibka ay ku jiraan waxay keeneen inay abuuraan IDPs waa barakacayaal waa qaxooti oo Soomaali qaxooti ku ah cadadka ugu dambeeya aan haysan waa ilaa 3 milyan ay gaarayaan meelihii beeriya kasoo ordeen badiya kulmaysiin kasoo ordeen xooliya kasoo ordeen kulligood waxay soo degeen magaalooyinka waaweyn xamar kaliya waxaa joogta 200 kun oo jooga dadkaas hadday muddo badan meesha ay joogaan maxaa ka imaanayo waxaa la maroyaa 30 sano waa generation saddexaad aan maroyna xalaa inka waddankan ay joogtaan dii waxa laga qaban meelihii lagu celin waa waxaa imaana azma waxaa imaana oo economic ah imaana markay wax soo saarkii lama tegi karo laakiin alxamdulillah falma aasan dawladdu waa dadaashay hadda howlgalo badanaa bilowday ee shabeellaha hoose dhowr degmo ayaa la xoreeyay hadda degmooyinka maxaa la yiraahdaa shabeellaha hoose ilaa waa 7 degmo waa 5 degmo la xoreeyay hadda laba dhimo sabalaali waxaa iyo kurtuwaare ama rajeynaan sida ugu dhaqso badan meeshii ugu weyn oo dhigal daraada laga baxay meeshiina markaan tagna aniga markaan dad ma joogaan dadka soo wada ordeen kulli bariiraan tagnay 10 baabuur raashin wax kastaan geeni qof aan siinaan wayn dadkii meel ay fadhiyaan raashinkii ma qaadan kara shabaab ay ka cabsanayaan cabsi ay ku abuureen waxaan tagnay tuulooyin kale aan tagnay meesha caano wali sabiidaan tagnaa soo baahnay meelihii laga xoreeyay dawladda waxay ku sameeyeen musaajida baytullah qarax lagu sameeyay dadkaas wax diin ay wataan male waxay wataan male kulli wax u joogaan dadka inay dhibaateeyaan alxamdulillah dawladda meel kasta ay tagto meelihii laga xoreeyay iskuulaada laga furay caafimaadaan gaarsiin raashinaan geeni maamul oo xal sameeyo oo isku maamulaan tartiib aad waxaan rajeynaynaa laakiin wili jidadka oo kala xiran haddaan isku soo noqono marka degmada aan ka soo jeedo anaga degmada baraawe go'doon haddaan isku dayay dhowr jeer hay-adaha samafalka inay meesha tagaan kulligood waxay amarka wax kula meesha red flag area waa mal tegi karo baraawe maanta waxaa loogu gurmadaa badda wax laga geeyaa annagana waa soo baxnay 30 sana waddanka maqanaya marna gadaal ma loo fiirin yaa la eedin shabaab waxay lagu sameynayaan male shabaab meeshaas waxay u joogaan ganacsi u joogaan lacag ay qaataan waa marayaan zakaday ka qaadanaya hooshooda iska qabanaya laakiin dadka laga rabo inay meesha tagaan magaalada baraawe maanta wax infrastructure oo jiro male dhowr jeer aan tagay
isbitaalaha hataa haddaa samaysa meeshii shaqa la'aana ka jiro madaxweynihii hore kasii horeeyey kana hadda ka joogo kasii daran yahay waxaa isku daydeen inaa wax samaysaan ilaa amarkiisa mch wuxuu yahay mal laakiin mch ceel wa runtaan in sheegaani mch lacag lagu dhisa maayo mch haddaa gacanta ku dhigatid adiga meel oo wax laga faa'iidaysanayo maaha ganac wax kaa soo gelaya maaha adiga waa inaad bishii 5,000 ilaa 10,000 inaad geysid hataa hay-adaha qaarkood markaa geysid mukulaha 2 bilooda ka shaqeynaya waa kasoo ordaya laakiin still we didn't give up marka aniga xalaasna waxaan diidayna waan fargelin aan ku sameyno in la wada fariisto la wada hadlo marka inaa isku qabataan wax macalleen qof wadi kara male walaa groupka hadda qeylina dhinacaas jooga ma sameyn karaan iyo kuwii kale kasoo horjeedaan ma wadi karaan in la qaado isi mch kaas hay-ad loo dhiibo ama unicef loo dhiibo ama icrc loo dhiibo la dhaho wada ininka awooda marka dad shaqaale ma shaqaalaysiin kartaan dadka lacag ma bixin kartaan masaariiftii ma samayn kartaa daawooyin ma geen kartaa talaal ma geen kartaan kustaa fiican motor isku sheeg hadda laakiin saa isku jiidaan iyo naftiin faa'iido ku jirto dadkii lagu sheegi jiray oo caqliga badnaa maanta hal mch ku heshiin waayo doctor gare saas ugu yiraanay yani kuma dhex jiro yiri samayso yiri wixina furtaasi laakiin anaga heshiin weyn wax ka fiican ma leen la wada fariisto la wada hadlo war waa ma wadi kartaa wad dhameeyo ma dhameyn karo runtaan sheegaani akhiran ana li imaan doon ana hay-adaha meesha keena ka shaqeyn doon marka saas oo kale wax ma leh raashinaan geen weyna meesha daradaan xoogaan wax u geeni go'doon waa meel la maro ma leh waxaan rajeynaa mar dhow sida ugu dhaqsi badan in maxalliga magaaladaas in lagu xoreeyo dadka la geeyo problemayaasha ka jira meeshii waxbarasho ma leh iskuulaad ma furno iskuulaadka mar dhow aan isku dayno meeshii wasaaradda waxbarashadan geene in xarun weyn laga furo oo polytechnic ah lacagii lagu dhisi lahaa waa diyaar waaye dowladda keeni doonta insha allah laakiin waxay ku xiran tahay iskuulaadka dowladda meesha joogaan kulli privateka in la mideeyo hal manhaj ay yeestaan kaasna waa ku guulaysan alxamdulillah iskuulaadka kulli hal iskuul ay noqdeen ilaa dhowr arday ka soo baxay ilaa 100 arday dhigtaan dugsiga hoose saas oo kale ka dhaxno laakiin hal iskuul aa jiro aan rajeynayno mar dhow in lagu wareejiyo maxaa la yiraahdaa dowladda ayaga imaanaya macallimiintii iskuulka dhigahay mushaar u baahan yihiin mushaar loo bixin kartaan ininka dowladdu waxay ogolaatay inay dadkaas inay wada soo tababarto in wax loo sameeyo maamulkana markii la sameynaya ciidan hadda degmo kasta ciidanaa laga qoray qof kasta laakiin dadka la qoray waa dadka deegaanka ilaa degmo kasto ee xoreeyay ilaa 400 loogu talagalay hadda degmooyinkan la xoreeyay barnaamijka markoo inta saasaa loo sameyn doonaa hay-ada badanaa tegeen inay wax ka qabtaan dharwaana mategi karaan laakiin weli waxay sugooyaan un-ka inay green light ay siiyaan dhada baraawi iyo marka waa tegi kartaan inay dhahaan qof tegi kara maruntaan ay sheegaan meeshaas sidii uu xoreeyay meeshaan weli security issue ugu weyn waddanka ka jiro waa security number 1 security waa number 2 security waa number 3 meeloo nabad la heli waxa qabaan كبيرين كل دكتور أصور عدلين كل حجوا مقالوا يجوا سياسة لو علين كرم ماله ما نقص بكرم دكتين حكومة كمان إن أي قرالي ولا نتيجة عن ماشى شروطا وحوا إن ماشي نبض يوجد لجيك هذا سامر كان وأود علسان براو دلالة له فيه هذا ده سودين يقول لك ما خيال سودين ما قد تعمل جوتي كان في سوداء ولا بدو راعينا لأن كوي ما وروا إنه نود ماشي كده سودوين يسمع بس كده هذا ماشي لكن عادي حتى ماشي كم قد تعمل ماشي هذا تيجي كو في الجامعة عندي سنة محمد جامعة لكن عابي سكولاتي ما بهاي ستين خلاص تمام ولا جرنا مركا دقيقة كان أفر روح وليه حدبان وليه شو شيء قاعد رمضان ما تقال سنة أنا خلاف إنه متجرو لكن وحوا وكل صعنا حوجين وحكومة معنا ما كانش كنا معنا حلقوا واحد مسميكر ولا حد وانا واحد مسميكر ولا وزير واحد مسميكر ودن كنا تقال متجرو ماشي محل مشقينه يا محل يرالا إسحاقنا مشقينا مركاتو جم كنا واحد كبيرنا معنا دتينا وبايدنا too much ما كسبان
شاء الله مركان كنا نقول عليه كل فريتين وأنا جالسين هيا وأسكون معنا رجينا الناس يسكون معنا مشاكلات المبدئية ماشي لكن إنك هذا إنك جامعة أحرتان هتسوي جيسين دجان شباب الله هذا يقول يسلو دجان دونا تكاسنا حب ما تعدي كرتان أم كسمين أنا بجو إن ده كلا وضعنا لا قراد واجد لكن قراد كيا كفاية دي سنة dadki deegaanka uu qof kasto magaaladiisa u dhistay maanta tuulooyinka uu xuno aan soo booqday jaamacada ka furan baraa ku faan oo dhigi jira aniga aqoonta aniga maanta aqligeena ma batmiya boogi ya maanta taa iskuul aan furugeed marka ugu horeysa insha Allah alxamdulillah waxaan ku guuleysay inaan dhalinyar aan weero scholarship ilaa dhowr aan LCE ilmihi waa heli kareen ilaa 23 laakiin grade-kooda yaraa dadka waxaan ku tusanayaa musuwaag waxta aqoonta waxbarashada dhalinyarta oo deegaanka baraab inay hoos u dhigto anaga awuriida runtaan ii sheegaani anaga aan amisan anaga inaan dadkan ka aqal badana marka maanta waqtigan waxaan joognaa anaga ugu dambeeyay reer baraabo waxay meel ku gaareen waxbarasho dowladnimada markii la qaadayo meel kasta loo dhiibin jacayl markii wax aqoon ay lahayn aqoonta maanta wax ku maamul karno ma haysanaan banaanka wada jiraan dadka aqoonyahaankii waa kan odayaal culimada meelaha ay joogaan in wadankii mar la tago inaka haddaad shuruud ka dhigtaan aeroboortka waa la diyaarina waa la tegi karaa barawa haddaa rabtaa haddaad timaadaan aniga arrangementaan ay samayn karna al helicoptera jiro un waa tegi kartaan baa aad tagtaan at least inaad soo booqataan lebislin arko in ninkii ahlubeledka inuu magaaladiisa joogo barawa keliya ma problemka ugu weyn hadda baadiya maxaa la yidhahda haddaad tegtid kunjabaro maringwaay eri laykuri ka darna hadda qolooyin haddanaad in la yimideen waxbay naga dalbadan insha Allah waa geyn karnaa laakiin waxaaba see loo geynaaba meesha security ma waxaa waa haddaa geynaysa ama qolooyinkii meesha jooga inaad diil la gashaan wa anaga ma faragashin karna absolute gaalashiina oo ka cabsanaya meelahaas inay tagaan wuxuu leeyahay meeshaasoo dadkaas laga safeyna aniga wax ma geyn karno waxaan ka qaban karno mal alaatay maqiya aloor markay ahlulbeledka inay tagaan waa meesha haddaadhihiisaan baraha faraha laga qaado iyo markaa faraha laga qaado in iska joog qofkas meeshiisa waqtigiisaas kaaga jirto yani mar muumaan meesha inaani karkabay laakiin waxaan leeyahay magaaladii waa la soo celinay at least hataa bishii ama sanadkii hal mar laba mar inaad tegi kartaa magaaladiina kasoo filan qofkas gurigu kasoo tagay meesha guri haddii la degnayn waa dudumaya guriga at least hataa meesha iskuulaad laga furo clinicyaal laga furo isbitaalkii la xoojiya dadaa ii yimid waxna baraabaram inaa wax ka sameeyo imaadaan yani daraada marwada madaxweynaha isoo adeeg isoo dirto xataa xamsa markoo yimaa waa u tagay waa is aragna waa fariisanay waxaa tiri waxaan rabaa mashruuc inaan baraawa geeyo maxaa dhacaa markaas bis aniga inaan reer baraawa rabaa inaan wax u qabto isbitaalaan rabaa inaan ka dhiso waa fikir marka waxaan isbitaalka haddaa dee keenta yaa loo dhiiba faraha laga saara haddiiba MCH yar oo lagu heshiin waayo oo dadku yaa wax u dhiibaysaa markaan caqliga lagu noqdo khilaafaadkan ha liska yaray marka waxaa waa haddii dadkii casabiye u soo galo wareer oo wax ma la qaban karo meeshaan wada jira wax lagu qaban doonaa waxaan ku sheegaa aniga gibilcad kaligood ma socon karaan tuna la'aan tunana kaligood ma socon karaan bil la'aan marka dadka waa weligeena ma maqla anaga nin shangamaasaan gibilcad dili ama nin gibilcadaan shangamaas dili saada kuna hadda u badato waa iscaayaan xaajana reer magaalanimada waa kaas xadaarada ku jirta dad wada nool wax isla qaybsanayaan isku macsan taasaa waxa lagu gaaray alxamdulillah waa la goorsiday xaatinan dadkeena odayaasha hore ay shaqeeyeen markii yidhaahdeen wax walba baraa ka dacwaa faataxo haddii diya jiri lahayd nin walba oo kasta diya raadin lahayd wada noolaashaa wax weyn waay hadda fiiri dadkii meesha qabaailadii kala degan baraaway yimeen soo degeen wax kale masoo nabaday soo raadsadeen magase kan galmudug ka soo orday ma joogi kara bentiis wasiir waxaan ku leeyahay dadkan meesha heshiin waayaa
dadka heshiin waayo oo wax dadka heshiin waayo waa dadka deegaanka waay yaa kale marka aniga waxaan leeyahay khilaafaadkan hala yaray faa'iido noogu jirto marka aniga nafteena adiraysa yani matalaynaa marka meesha aan fadhina aniga oo qiininayna dhinac ma istaagnaa inta maasaa ani dad oo maamulka koonfur galbeed ku jira waxaan xamsa wuxuu yiri ma guriga xun aa ku heshiin weysaan asi xamsa waxaan ku leeyahay odayaasha meeshaan joogaan kulli nabadgelyo imaadeen meeshaan mugtaan sax marka qof kasta waa jecel yahay waddankiisa inuu u laabto maanta anaga inta dhibaan ku qabnaa runtii macal ilmaheena anaga hadda waa ilmaheena ma arkin oo hadda waxaa ka daran ilmaheena ka daran qof kasta maanta oo odayaha waalid waay ma arkin kulli ilma dhaleen reeray leeyihiin kulli waa joogaan laakiin anaga dhibaan ku qabnaa meeshaan inaan waddankeena u laabano baraawo maaragtaa ilaa xamar businesskeena maanta qofka ruuti oo inta ku cunaayo wuxuu jecel yahay xagga ma arkino soo siraa xalle ma arkino noogu cuno waddankiisa badda baraawo malaayigeena xoolaheena maaragtaa wax kasta barwaaqada caanaha la keeni jiray nimcada aan ku noolay anagoo wax waraaq aan ka fikirin wax ilmaheena ma arkino isku socon jireen marka hadda haddii la laabanayo garaal ahaadee odayaasha waa idinka hormariso hesheeda marka hadda haddii la laabanayo waxaa mas-uuliyadooda yaa qaadaya macnaha ilaan dowladda waxa waa mas-uuliyad macnaha ayaa ka saaran waa la ilaaliyaa waxaa lagu ilaaliyaa marka dadka masaakiinta ma arkino waxaan rabnaa kulligaa ma arkin inaan laawano aniga hadda feeri ni imaan qortna aniga qabto noqdan meesha waddan baa la yimaada madase diyaaradda aeroboortka markaad tegtay ya reer banaadir saaran reerweynaa saaran dad qaarkooda qof kastaa yimaado waddanka idinka siyaasad ma ku jirtiin dadka la ugaarsana anaga way anaga waa dadka riskiga ku fadhiyo oo maxaa la yidhahdaa oon dhuumanayo oo maqbiya oo shaqadeena waxaan ku tagna markaan dhaqaaqina baabuur bullet blockna ciidan la socdo adigaa kula hadlaaday magaaladaas haddaad tegtid shabaabka taa ma kula hadlaya adiga reer baad laakiin ana hadduu qabto way qabanaa aniga way dilaa aniga فاضل وزير وحقله هدية تريمات security مش ملا شنو تيجي ما security waxaan ka wadaa security economic markano dadkan meelaa waxta inaa gaarsiis ay wax kale ugu joogaan dadkan ayagana waxay isku sheegayaan ayagana dowlad ay yihiin meelay joogaan canshuuray aruuriyaan shareecado ay wataan jeebkooda ka wataan ay qabtaan wax kasta sameynaa laakiin means aday had waa ma tegi karta ma kudhigi karaan waa tegi kartaa maxaa caadaa loo imaanayo baranka waddanka soomaaliya aeroboorkaas markaa ka degatas waxa kulli soomaali soo degan kulli baasboor ajnabi ay wataan waziri sakuza swali moja isamini mbeka size yiko sisi lile naona hapa na alhamdulillah rabbil alamin hapa shahadi kwa tina wodi bus alhamdulillah shukina fikra isa sura isa mathala bijawa sagrabina kufanya business hapa safanya business sadiri kufanya mipeke illa kwa wargidiru mwanamsho na dire wode kaziko wallahi hizo ni kode kasize mbele lakini mnakamba chuchumoi wako watu watasafiri abadie kamini wabiru matajiri mimi nayo utaamini wanafanya wana nini wanazohai au wanaondoa wanafanya kazi kwa hawazigirichi na kufanya nawe kazi fanya kazi kwa hawazigiri kama wako utaamini unafanya nao kazi hapo inafanywa kazi lakini nakambia hiyo kwani qalbi nafsulowa isana gala tu miss kuya hapa kishika shingo kinamba ila wala udalimi lakini muivinu imani kwani nipele Mungu ndo sisi so wanawake malano sultani lakini hiyo mini muombi isa hiyo apterisi yako bahenra ni mini hendo famu yo upendi saden muyo echeta tatalo muy chwanani kenra at least hata endani ramadhani endani eid endani wakati fulani holiday wana wao Somali kwa tukuna kupeka maduridi wanakana kwa hizo angamira hapa ai watu wanakusudia kwenda kuziarata kwa lini itakumana airport nishisha airport kama lata yuko airport mita kimpenga mara wana watu mapo nisulokeenda watu kama hizo pesho yuko helicopter do nation takena kama nisulokeenda mimi kata 40 na airport kwa karibu inshallah ina kinene nafanywa terminal hiyo malizo timaliza mtaamini wakadri pana baraka kulu kani khali
نوارو دري كجرايو إنا كان روا كباتيرز إنا كان روا كجاري إنا كان روا كل ما نقبلها وان فوق ولا زو كلام درنا كانوا مين كل شيء وحدنا في الشدعة من هدوك أصل كيس بقصة كعين سبورتي ونين بوشة تاسع ما أردتكم عادين أنا وزيرك وحواي يربي وين يو ونجير كل وحواي قلبي وفريع هل شيء كعود سنين سيد الوزير بعدما إذنك أديك يو حدوانا ذكر شيخنا منكي هدو الكورونيا هاي محمد نوران قدر رئيس ومعرفة وفر قلبين عبد القادر انت وحد يا حدوانا ذكر وما حدوانا ذكر ونقول جيران وحد إذا كعود سنين سدع عدلما ومداس يدركاس المسؤول هذيك كعود سنين إلى الدراسة كل إلى سكوكيت انت سكعود سنين وقتك صقوها دبك صار وحاول لذي قفك سكة صاقوقل أي حاجة صاقوقل نظام كصاقوقل وحاقوقل لكن بعدما ملكيس أمتيس الشريف أحدق أمري لا هرتيس أمتيس إنه أديقوها هذيك مركب حكاء سنينا إن أتسميشن unity أو أتسميشن أو معرفة جدي أو معرفة معرفة أو ميزان intiina aad wada shaqaysaan dhulkaas ummadaas u adeegtaan iyo dhulkana aad adeegtaan wixii annaga diaspora noolaga baahdo insha allahu tacaala annagana waa midaynaynaa dadkeenna maraykan jooga wax jooga laakiin markaan helno insha allahu tacaala idinkoo midaysan idinkoo hoggaan qaba idinkoo meelka wada soo jeeda yay noqonin farfaariqaati marka raadi taasa kugu soo ducaynayna insha allah والله إن شاء الله أنا حل شيء كتير إقرأ المقدار يستنسام جابش وبحر الربتين لأن يربط أنا أجر أولوس دوسي سرك بحين قارن حقول السكولرشيب كم كي هلان نحوجا مدو خالنا صح أنت كبحيان كوكل ورازينه إن شاء الله أبيلاي إيرانو إلا كنتنا اللي سو جدي قار بدنا أجر أولي وغريك ودي راي inaan u raadino jaamacadaha oo waddanka ka furan inay wax bartaan dadkiina waa iska liitaan dhaqaale ahaan waxbarashada wax weynna ma aha ininka naftigeedina isxilqaantaan qof kasta aad gaarsiisaan magaalada aad joogtaan qof kasta inuu hal arday uu sponsor gareeyo waxbarashadiisa jaamacad ka dhameynaya ninkaas annaga si kale aan kusoo celin karna male hoggaankeena leadershipkeena annaga waxbarashaa meel wax ku gaarnay waxbarashaan aaminsanaa saasna ku dadaashaan ilmahaas aad iskoodan ilkeen doonaan qof kasta oo tabartiis ma dhahaya aniga magasa ninkaasna u joogtaan ilmahaas jaamacadaas oo meesha ka furanay هذا وزير أقول لك ستة سكولت سكولت أمريكا كول سكولت أمان كلام سكولت ستة كيلو وحاول food security okay wax soo saarkii waa yari cimiladan arkaysaan oo soo dhow cilnaa maxaa la yiraahdaa abaara joogta u noqdaat wax soo saarkii ayaa beerihii la falay minta waa yari marka waddanka wili ma taagna aniga development waa u gudbi laana wili humanitarian kan joognaa gobolka haddaan noo sheegi lahayd hool baa ku ijaari lahayn يعني هويوي كان يشتهينا يويلشينا يكون كان لهين وكشمين لهين وحنو مالينا ميل هذا ميل بيت الله ميل كمان نسكو حشماي مجرتو وانا كعود دارنا عدد كيال على ماشي كنا من سيدو كله وحن كاغا مهل علينا وربحنتي بلارنيد او فسيحده هيد او فيعنيدي oo aad nooga warbixisay guud ahaan dalka gaar ahaan deegaankeena Baraawe aad ugu mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku sheego reer Baraawe inkastoo percentage ahaan dadka ay sidii la rabay ahayn laakiin dhalinyaro ah oo shaqeynaya jiraan oo NGO-yal ka shaqeeyaan oo iskuulo maaragtay oo hadda wadaan isbitaallo wadaan xataa la isku dagaalo laakiin waxay ka mid tahay waxtar bay ka mid tahay wax soo saar insha Allah taala dardaarankaagana waxaan u maleynaa dadku wada maqleen وانا ولا قادنا ان شاء الله تعالى يو واكو جان واكو نسبه سبونسر
hal wako katika vijana au baadhi wanasoma nafsu masharia ya Islamu kwa Karim jamani kienda kusoma chuo wako shtakadira kufanya kitu mapa hapa hata dima maana kwa Karim kienda kupata sharia ya Islamu maana kujibu وتشكو مشان أمور ومسؤول للست يشيروا معنا ومحمد يشيروا شوف ده إذا وأنا سبش بيترو يكون يجير كنا بيجير وفungona au so almeno wanafanya mustakbali yao wanasoma wanao sana hiyo masomo wako chitu Asante sana.